waxaan jeclahay inaan ka hadlo jacaylka maanta iyo shalay, yesterday and today. waxaan leeyahay jacaylka waa jira, waa neecaw qabow iyo uficib wado cidina kama maaranta jacaylku inay sanka la raacdo, laakiin jacaylku wuxuu u kala baxay saddex qaybood oo waaweyn. runtii jacaylka dhabta ah, jacaylka danta ah iyo jacaylka dhalanteedka ah. inta aan midkoodna xusin bal aan isla eegno hal abuurada Soomaaliyeed iyo halyeeyada caashiqa waxay yiraahdeen caashiqii cantar iyo cablaba dilay ayaa cayna ana caynkan ii galay. haddiise aynu soo qaadano jacaylka maanta jira, waxaa is jecel gabar iyo wiil. gabadha iyo wiilka muddaday wada socdaan waxay isqaabsanayaan erayo qiimo leh, sida haddii aan ku waayo oo aan ku guursan adigu si kale ayaa noqonaya, xalay oo aanan ku arag cunta way iga degi weysay iyo waxyaabo kale oo lamida. toddobaad kadib waxaad maqlaysaa daawadayaal gabadhii iyo wiilkii dareenka is amaahinayay oo wadnaha isku dhiibayay oo ku kala booday eray yar oo wax qiimaa ku fadhiyin. haddaba kaasiba jacayl baa? jawaabtu waa maya. jacaylka dhabta ah markaan ka hadalno waa jacaylka hooyada. jacayl kale ma jiro. hooyada haddaad nacas tahay, haddaad dirac tahay, haddaad damaar tahay, haddaad doqon tahay, haddaad geesi tahay, way kugu jeceshahay. mar walbaba hooyo waa hooyo, inankeeda nooc kasta uu yahay, mar walba waxa weeyaan way jeceshahay. jacaylka dhabtaa horta waa jacaylka hooyada. jacaylka kale waa beertaada, waa awlaadaada, waa wax walba oo adiga markaasi hamigaaga gelayo, iyaduna waa jacayl. beertaa leedahay waa jacayl, gurigaa leedahay waa jacayl, awlaadaada waa jacayl. laakiin jacaylka maanta jira ma aha jacayl jiro. qurbahan joognaa hadda ma arkaysid laba isqabta oo isku dhiid furan. goormaa lagu furi doonaa iyo goormaa kala tegi doontiin waxa lagu fikiraa maalin walbo balaaya lagu fikiraya. laba qofood oo arkaysi maalin walba iyagoo xarakeynaya magaalada dhexdeeda in lagu yidhahdo hadda way kala tageen oo maxaa dhacay way yar isgaareen. wax kala celihaayo male, wax isu keenaayo male. waxaan maanta ka digaynaa cawaaqibxumada ay leedahay furiinka faraha badan leh ee qurbaha ka haysta Soomaalida. warnimiyo idinkaas la dhashay maanta ehel iyo xigtii qalaawo ma joogaan meeshaad joogtaan. iswalaashada, iscafiya ee isjeclaada. boqorka bartamaha Darmstadt, Germany.